Ameerika way sugu leedahay isaga. Trump oo magacaabay xiddiga ugu weyn kubadda cagta dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhaliyay hadalhayn badan kadib markii uu fariin muuqaal ah u diray Cristiano Ronaldo isagoo ku ammaanay inuu yahay xiddigii ugu weyn abid ee soo mara kubadda cagta. Muuqaalkan ayaa la baahiyay kadib markii Ronaldo uu bishii November booqday xafiiska Trump ee Oval Office isagoo qayb ka ahaa wafdi ka socday dalka Sacuudi Carabiya. Trump ayaa muuqaal uu soo dhigay bartiisa TikTok ugu yeeray ciyaaryahanka Al-Nassr ugu fiican abid wuxuuna ka codsaday inuu yimaado dalka Mareykanka. Cristiano Ronaldo waxaa tahay kan ugu fiican abid, waxaan u baahanahay inaad timaado Ameerika, ayuu yiri Trump. Hadda soo dhaqaaq si degdeg ah ayaan kugu baahanahay, ayuu raaciyay Donald Trump. Muuqaalka kadib waxaa baraha bulshada lagu baahiyay muuqaal kale oo lagu farsameeyay caqliga macmalka ah kaas oo muujinaya Trump iyo Ronaldo oo ciyaar saaxiibtinimo ku dhex ciyaaraya xafiiska madaxweynaha. Trump ayaa dhawaanahan si weyn uga dhex muuqday wararka kubadda cagta isagoo xagaagii hore goobjoog ka ahaa ciyaartii finaalka ee koobka kooxaha adduunka oo ay ku tartamayeen Chelsea iyo Paris Saint-Germain. Sidoo kale wuxuu abaalmarintii ugu horeysay ee FIFA Peace Prize ka gudoomiyay madaxweynaha FIFA Gianni Infantino kahor isku aadkii koobka adduunka ee sanadkii hore. Trump ayaa laga yaabaa inuu fariintan ku dhiirigelinayo 41 jirka Ronaldo si uu dib ugu laabto tartankii kala dhexeeyay ninka ay muddada dheer xafiiltamayeen ee Lionel Messi kaas oo hadda ka ciyaaray horyaalka MLS ee Mareykanka. Toddobaadkii la soo dhaafay waxaa jiray hadalhayn ku saabsan suurtagalnimada arrintan, gaar ahaan markii uu ciyaaryahanka Al-Nassr diiday inuu ciyaaro isagoo ka mudaharaadayay wax uu u arkay maamul xumo ka jirta kooxdiisa oo ay mas'uul ka tahay sanduuqa maalgashiga dadweynaha ee Sacuudiga BIF. Booqashadii Ronaldo ee Oval Office bishii November ee la soo dhaafay waxay ahayd markii ugu horeysay ee uu cagadhigto Mareykanka tan iyo markii uu ciyaaray Real Madrid, kulan ay dad gaaraya 109,318 taageero daawadeen oo ay la ciyaarayeen Manchester United xilligii isku diyaarinta xil ciyaareedka ee sanadkii 2014. Dhinaca kale, Eze uu iga xanaaqay. Arteta oo daaha ka rogay arrin dhex martay isaga iyo Eze kadib kulankii Tottenham. Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa sheegay in Eze uu ka xanaaqay isaga sababo la xiriira inuusan helin fursado ciyaareed oo ku filan kulamadii u dambeeyay. Arteta ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii Eze uu 2 gool dhaliyay xilli Gunners ay fiidkii Axadii 4-1 ku xasuuqeen Tottenham. Natiijadaas ayaa Arsenal u suuragelisay inay mar kale 5 dhibcood hoggaanka kaga qabtaan Manchester City miiska kala sareynta Premier League. Arteta ayaa si dhif ah fursad u siiyay Eze si uu ugu soo bilowdo ciyaarta, waxaana uu dhaliyay goolal qayb kasta oo ciyaarta ah. Waxaan arkayay inuu doonayay inuu wax cadeeyo, ayuu yiri Arteta. Wuu iga xanaaqay xitaa aniga sababtoo ah ma aanan ciyaarsiin kulankii hore. Hadda waxaan bilaabayaa inaan fahmo sida aan uga heli karo waxqabadka ugu fiican, ayuu yiri Arteta. Ramadaan Kariim saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka la soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biiro ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.